ciidda waxaa sunno ah qof ciidan oo kale markuu qofku soo baxayo inuu waxba soo cunin markuu soo aadayo ciidda inuusan waxba cunin tii hore laakiin waxay ahayd inuu wax soo cuno tan laakiin asagoo afkiisa qabo imaanaya sida sunnada ah dharka ugu fiican oo heli karo inuu soo xirto طيب iyo udgoon wuxuu heli karo inuu soo marsado markuu soo soconayo inuu soo lugeeyo markuu laabanayana lugeeyo haday lugtu u suurtoobayso way acmaashan saalixaadka ee maalmahaasi ay leeyihiin waxa kamid ah maalinta ciida maca dumarka inaan laga soo tagin hatta al-huyad kuwa aan daahirka ahayn waa la keenay waxay ka soo qayb galayaan bariyaha muslimiinta ducadooda iyo wacdiga iyo khayrka ka soo qayb galay laakiin salaada tukamayaan ayagu wala soo saaraya tii aan mara fiican oo ku ciida aan haysan waa loo raadinaya in loo raadiyo oo mid kale ay siiso ay aad iyo aad u wanaagsan waxa dadka dhan loo soo saaraya oo kuwii xataa aan daahirka ahayn leeyahay soo baxa loo leeyahay waxa weeyaan maalinka in la muujiyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ka leeyahay muslimiinta uu u leeyahay iyo farxadda weyn in laga wada qayb qaato in waxa weeyaan la bilaabo la qaado takbiirta oo aan la kala joojin ee la wado sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu amray in la udhiyaysto sharciguna waa booriyo ajar weyn baana ku sugan waana shacaa'irta islaamka ee waa weyn qayb kamida weyn jeel baa la qali karaa loo baa la qali karaa ari baa la qali karaa muhiim waxa aan neefka ku udhiyaysanayso inuu ceeb lahayn والنبي عليه الصلاة والسلام باشاقي إنaysan gudahayn afar ceebood oo waaweyn ay xoolaha qaarkood leeyihiin inaysan udhiyada ku ansaxayn neef illa ishiisi ama labadaba la banaankana ay taal ceebtiisu aysan qarsoonayn midkii jabnaa midkii mataqaana caatada ahaa kii jirana ceebahaas oo dhan ka dheero maalmahan sadaqadu waa ziyaado fadliga laga helaya waa ziyaado waa inaad ku didaashaa oo badisaa ina aad iyo aad sadaqada u badisid ahalka iyo qaraabada ugu hormari ayaga saakiinta kalena ha iloobi